السلام عليكم دمان umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa salaamaya gaar ahaan shacabka Jubbaland oo runaantii dhibaato xoog leh ku sugan caburin iyo dhibaato badan ay haysato haday Kismaayo tahay iyo haday gobolka Gada tahayba waxaan Ilaahay uga baryayaa sida ugu dhaqsaha badan in Ilaahay dhibaatada ka saaro waxa xaqiiq ah oo aniga mar walba hadaladayda ku jirta inaysan doorasho dalka ka dhici karin sababaha keenayana ay tahay ku takrifal awoodeed oo uu keenay madaxweynaha maxal hadda waagi dhaweyd sharciga ku tuntay sida xad afka sharciga ugu tuntay maxaa Cabdullaahi Farmaajo haddana wali waxa moodaa annagoo qiimeynayna hadalkiisii iyo habdhaqankii baarlamaanka iyo hadalkii uu jeediyay ra'iisul wasaaraha intaba markaan isbarbar dhigna waxa moodaa inay isdiidan yihiin maxaa yeelay Farmaajo ma cadaysan inuu musharax madaxweyne yahay ma cadaynin inuu wareejiyay abnigii qaranka oo idil oo uu xaq u leeyahay inuu ra'iisul wasaaraha haday carqalada imaato uu kala bedeli karo maxaa la dhahaa sheeg ciidamada hogaankooda baarlamaankii waxay ansixiyeen eedii wuxuu saaray baarlamaanka eedii dhan waa iska leexiyay oo sida ku cad madaxweyne Farmaajo wadanka markuu qallaaso ka dhaco ama dhib dhaco waxaa mudan in uu علشان qofka bini aadanka ah oo mas'uulka ah uu mas'uuliyadda qaato mas'uuliyaddaas la qaadanayo waxa imaanaysa hore u socod waxa muuqata inuusan Farmaajo mas'uuliyaddii qaadanin waxa moodaa wixii dhacay 25kii oo qallaasaha xoog leh oo burburka dalka qarka u saaray oo maxaa la dhahaa barakaca keenay oo keenay maxaa la dhahaa sheeg dhimashada keenay oo wali xasilooni darrada ay jirto eedeedii cid qaadatay ma leh eedii waxa lagu isdhexmaraysaa inay leeyihiin maxaa la dhahaa ciidamadii gadooday inay leeyihiin midowga musharaxiinta inay leeyihiin baarlamaanka inuu leeyahay madaxweynihii laakiin dalka dawlad baa ka jirta markay dalka dawlad ka jirto waa in ay qaadataa mas'uuliyadda wixii imaada dhibaatadii imaata mas'uuliyaddeeda waa inay qaadataa mar hore aniga cadeeyay oo waxaan ku cadeeyay in Farmaajo hadduu baarlamaankii xataa inkastoo baarlamaanka aad moodo inuu eedda saaray haddii baarlamaankii xataa ay ku degdegeen inay ku darsasho waxay ugu yeereen jihayn doorasho balse ku darsasho cad ay ahayd hadday 12kii ay ku dhawaaqeen waxay ahayd in maxaa la dhahaa baarlamaanka ay علشان doorasho wada geliyaan madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka taa ma dhixin oo waa ayagaba khalad bay halka ka galeen oo taa inay khalad tahay علشان maadaama doorasho la wada suganayay dalkana uu ku jiray xaalad adag uu ku jiray laakiin tan madaxweynaha eedda uu ku qaadanayo oo cad oo aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayo ana raba inay u cadaato eedda meesha ay ka imaatay waxay tahay madaxweynihii oo ka maarmay aqalkii sare waa sharci ku tumasho markuu madaxweynihii dhaho aniga wixii iidan ah iyo aniga sidaan ku socon karo baan awoodayda u isticmaalayaa loo dhiibtay oo uu maadaama aan wada ognahay saddexda labada hay-adood oo sharci dejinta labada aqal in wax walba oo mid ka soo baxa midda kale uu maro markaa kadib madaxweynaha uu saxiixo oo dastuuri ah uusan madaxweynihii samaynin taabaa waxay keentay khalkhalka dhan oo siyaasadeed oo maadaama madaxweynaha awoodda inta la ku takrifalayo in ay ciidankii gadoodaan inuu sharcigii burburo in cidna aysan ilaalinin nidaamkii dawliga markii qofkii weynaa oo maxaa la dhahaa waaridkii markuu qaldamo ilmihii waxay sameyn karaan waa garan kartaa marka aniga horta halkaas baan ku eedeynayaa madaxweynaha halkaas baana keentay mas'uuliyaddaasna inuu qaatay ahayd qaladkaas ka dhacay mas'uuliyadda hadduusan qaadanina dadkii dhintay iyo qallaasihii dalka ka dhacay asagaa loo haystaa waxaana rabaa inaan in yar taariikhda dib u laabto Farmaajo dalka markii la keenay oo ra'iisul wasaaraha laga dhigay oo ay isku dhac imaaday asaga iyo isfahmin ra'iisul baarlamaankii waqtigaa jiray wuxuu isku dhacaas sababay in Kampala Accord ay soo baxdo oo uu kala doorto maxaa la dhahaa madaxweynihii markaa joogay Sheekh Shariif inuu waqti ku darsado oo dawladnimadii sidii loogu talagalay meeshii loogu talagalay ay geeyaan maadaama ay dhammaan weyday xukuumaddii iyo baarlamaankii is haysashadooda
uuna farmaajo run ahaantii taa eedda badan ku lahaa maxaa yeelay markuu imaadayba uu iska leexiyey qalad qofku wuxuu doona ha ahaado dhaqanka farmaajo siyaasadda ku soo kordhiyey waxay tahay qofkaan ma rabi waa ignoor garaynaa ra'iisul baarlamaanka oo markaa ahaa maxaa la dhahaa isha qof uusan markaa doonaynin ignoorkii uu ignoor gareeyey ayaa keentay in ay Kampala Accord dhacdo oo heshiis ay labadoodii galaan asagiina uu sahal ku baxo taa markay dhacday waa iyadii Muqdisho markii la isugu soo imaaday abaabulkii shacabka oo shacabka la yiri waxaa dhacday in naloo taliyey in ay saan dhacday in ay maxaa la dhahaa shacabkii isku soo baxeen which is dadka Soomaaliyeed ay fiican tahay markaa ay siyaasadii u soo maxaa la dhahaa hanqaltaagayaan ay xaqiiqda arkayaan balse wixii hore oo jiray oo xaqiiqda ahaa oo keentay in Kampala Accord la sameeyo dad badan ma ogeyn aniga waxaan oran karaa faa'iido noo imaatay ahayd bas waxaan rabnaa inaan fiirino waqtigaas waxa noo qabsoomay run ahaan waa meelaha aan haddeertaan markaan fiiriyo aan farmaajo qalalaasa badan dalka asagoo ka hirgelinaya haddana aan ugu mahad celiyo because dhanka fiican oo loo ambaqaaday dowladda Cabdiqaasin waxay ahayd ku meel gaarka dalka inay ka saarto dib u heshiisiinna samayso waa samayn kari weynay dowladda Cabdullaahi Yuusuf waxay ahayd inay ku meel gaarka dalka ka saarto dib u heshiisiinna aan samayno actually dib u heshiisiintii waa la sameeyey waa miro dhali weyday waa iyadii si loogeed maxaakiimta lagu wareejiyey oo Sheekh Shariif oo maxaakiimtii ka socda calashaan dowladnimadii lagu soo dhisay Jabuuti taa markay dhacday waxaan rabaa in halkan kaaga taa markay dhacday oo haddana ay cad tahay inaanan Soomaali aysan mandatekeeda shaqo aysan mas'uuliyiinteennii ka soo bixi karin oo noloo qeexay inaan nahay dadaan tashan karin ayaa waxaa dhacday in uu Sheekh Shariif magacaabo farmaajo kacdoonkii iyo arintaas qalalaasaha ay gelisay labada ishaysashadan calashaan xoog laho baarlamaankii iyo xukuumaddii ay keentay waxa imaatay Kampala Accord run ahaan inkastoo ceeb nagu ahayd shame ay nagu tahay inaanan tashan karin inaanan dalkeena maaraysan karin aanan xallisan karin laakiin maxaa la qabtay wanyeer gudaheed ayaa dastuurkii ku meel gaarka axdi baa awal noo yaalay dastuurka ku meel gaarka loo qoray oo dastuurkan hadda aan haysano afti loogu qaaday dalka gudihiisa doorasho lagu qabtay calashaan waxaa loo sameeyey qariidadii maabkii ay jeexi lahaayeen oo waxaa la yiri road mapkan baad leedihiin waxaan ku qabta which is wixii la qabtay oo ay Cabdiweli iyo Sheekh Shariif qabteen ayaa dalkeena maanta meesha aan joogno na keenay in a way faa'iido waxay u tahay isku dhicii iyo qalalaasii uu farmaajo create gareeyay hal solution oo waxa ka soo baxay dalkii uu si sax ah u ambaqaaday dadkiina ay focus ku yihiin siyaasadii waa meeshan kaaga imaanayay maadaama khalkhalkaas uu abuuray 2010kii oo ay imaatay Kampala Accord ay imaatay oo ay imaatay road mapkii hadda waxaa muuqata sidii oo kale farmaajo ma cadaynin inuu musharax yahay warqad ma soo saarin ay ku caddahay inuu wax walba wareejiyey haddii la isugu imaado maxaa la dhahaa ii sheeg maantana ummaddii Soomaaliyeed oo idil ay focuskii ku hayso wixii waxaa imaanaysa haddaan tashan weyno in loo taliyo ama ka hor aan tashano kalsooni darro abuuray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska horkaan shacab buu abuuray oo dadkii baa maantayto dhinacyo la kala safan oo dhibaatada ugu weyn halkaan aan rabaa inaan ku caddeeyo dhibaatada ugu weyn oo dalka uu keenay waxay tahay miiriyihii in loo isticmaalo dad maxaa la dhahaa dhalinyaro ah oonan garanaynin siyaasadda waxay tahay ka turjo iyo dad extremist ah in ay ka hadlaan caadifad siyaasadda uga hadlaan taa waxay sii abuuraysaa dadkii waaye aragga ahaa oo mar walba inay siyaasadda xaqiiqdeeda ka hadlaanna aysan ka hadlaynin xaqiiqda jirta taa waxay abuuraysaa inay dadkii wada caadifadaysan yihiin dadkii ay leeyihiin waa laga gardarnaaday ninkan shalay baa laga gardarnaaday maanta laga gardarnaaday waa la dhibaataynayaa cadow dal in aan cadow shisheeye leenahay mar walba way jirtaa oo cadow shisheeye farmaajo ma bilaabin
cadow shisheeye nolosha wadan walba adduunka dal walba oo jiro wuxuu leeyahay dal kaleeto oo interestigiisa iyo wixiisa ka ilaashaduu leeyahay balse carqalad ma samayso kuma samayso arrimaha gudaha iyo dadkaasi soo baxaya in la isku isticmaalo propaganda la isaga dhigo maadaama uu create gareeyay character assassination propaganda aanan lahayn calashan aanan maanta cadaynteeda lahayn uu create gareeyay oo dalkii oo dhan maanta cabsi ku kala jirto dadkii siyaasiyiinta ahaa aysan socon karin jidadka mari karin taa waytan sababtay in maanta maxaa la hub ay dad qaarkood haystaan oo leeyihiin nafteenaan badbaadinaynaa maxaa yeelay dawladdii baan aamin lagu qabin shalay meeshay joogtay maanta way ka sii daran tahay maalinkii 17 September lagu heshiinayay ama iga daba meeraysadii tirada badnayd maanta way ka duwan tahay maanta ciidan baa meel fadhiya magaalada baa la kala xirtay sidaa la adligeed maxaa imaan kara weeye farmaajona weli ila meeraysadii buu wadaa horta waa in la ogaadaa farmaajo maadaama uusan cadaynin inuu dembi galay asagaa mas'uul dalka ka ah qof kale oo mas'uuliyadda qaadi kara ma jirto dhib uu ilmahaaga geysto mas'uuliyaddeeda adaa iskale dalka wixii ka dhacay mas'uuliyaddeedii farmaajo ma qaadanin maadaama uusan qaadanin oo marna baarlamaankii uu u tuurayo marna uu u tuurayo meelo kale shacabkiina ay saa loo wada tuurayo eedda qofkii iska lahaa waxaa imaanaysa inaysan xasilooni siyaasad aysan imaan karin run ahaantii kalsooni darrada waa waxaan soo wada sheego idil maadaama kalsooni darradaas dhan ay wada jirto farmaajo wuxuu keenay dalkii in maanta Axmed Madoobe laga aaminsanaa ninka ugu dhibaatada badan dalka ama ugu ku tagrifal awoodeed sameynaya ama dawlad goboleedyada kale sameynaya maanta waxaa ka muhiimsan oo dadkii focuska saareen asagii oo qarankii dhaninka isku hayay maadaama qarankii qofkii isku hayay uu sharcigii ku tagrifalay uu jiha uu maanta dalkii kelmadda ay dadku ugu yeereen maxay ahayd jihadiid actually jihadiid waxaa ah dawladdii federaalka waxaa ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo baa jihadiid ah maxaa yeelay markii ugu horeysay ayay ahayd jiha sax ah inuu qaato jiha sax ahna uusan qaadanin ilaa al'aanana aan moodaa wax sahal ah oo inta laga soo qaban karo inuu waqtigiina ku dheeraynayo marka dawlad goboleedyada ka hadalkooda iyo waxa ay aaminsan yihiin iyo samayntoodaba aniga waxaan aaminsanahay haddii doorasho la aado in degmooyinka dagaalka dhacayo dawlad goboleedyadana aysan xakamayn karin dawladda federaalkana aysan xakamayn karin maxaa yeelay sida inta hub gacanta loogu haysto baa galmudug gacanta hub loogu haystaa loogu kala jabayaa haddii dawladdii federaalka fiiri dawladdii xasan sheekh dhibaatooyin way dhacday laakiin waa yaraayeen waxaa yaraynaysay tanaasulka xasan sheekh uu sameeyey oo wax badan uu calashaan ka tanaasulay markii dambe markuu arkay meesha ay carqalad marayso laakiin ku dhaganaanshaha farmaajo mid kalena waan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed xoog u tuso maanta waxay dawladdii noqotay kala garan la'adahay dembiga iyo siyaasadda dembi waa crime waa dembi la galay siyaasad in game siyaasadeed in la dheelana waa waxaanan qofka wax yeelaynaynin dhibaatana u geysanaynin hatta fiiriya dad baa waxay xayeysiinayaan oo social media ka xayeysiinayaan dembiyadii uu farmaajo galay baa waxaa laga dhigayaa siyaasad marka maxaa diiday qofka jooga maxaa la dhahaa ii sheeg xildhibaanka noqonaya in uu u qaato inuu dad dilo inay siyaasad tahay haddaan bal isweydiinayn shacabka dhimashadiisii marka waxaan joognaa xaalad aan la kala saari karin dembiga iyo siyaasadda haddaanan dembiyada la galay la qaadanin oonan eedeeda la qaadanin ama aanan xal degdeg ah laga keeninna calashan doorasho inay dhacayso oo xasilooni ku dhacayso ilama aha marka dawlad goboleedyada ama waxa diidaan ama waxa yeelaan wax ay xakamayn karaan ma jirto waxa kaliya oo oran karaa Puntland baa waxa moodaa inay wax xakamayn karto ayadana maanta carqaladda siyaasadeeda ka dhex taagan ama sidii hore inaysan ahayn way caddahay soo marka Puntland xataa inay wax xakamayn kartana lama ahan siyaasad haddii maanta doorasho la aado dalkan qarka wuxuu u saaran yahay carqalad hor leh sidii aniga ila tahay run ahaantii sidaan hore sheego kaleeto horta ilaahay weynaa waaxidka ahaa mar walba waxaa la yiraahdaa bini aadankana balaan bay samaystaan ilaahayna balaan buu noo sameeyaa markastana ilaahay balaankiisa hirgaliya sidii annagoo wax khaldan ugu qabnay ay u imaatay road mapkii u imaatay
road mapkaasna uu dalka jiha fiican ku jiheeyey baa aniga maanta waxaan fari lahaa maadaama anigii aanan ahayn qoftii fadhiday oo ka qayb qaadanaysay maadaama maxaa la dhahaa Axmed Madoobe uu maanta kursigaygii ku fadhiyo balse waxaan oran lahaa dadka isku imaanaya inaan ka qayb galano waa jeclaan lahaa haddii maxaa la dhahaa ay ka qayb galayaan siyaasiyiinta kaloo idil balse waxaan rabnaa instead of aysan adduunkiina jihaynin beesha caalamka wax kasta aan ka sheegno waa in amraysaa aan dhahno dad gacanta hoorsanayaan nahay maadaama dad gacanta hoorsanaya oo baahan oo dhaqaale qaadanaya aan nahayna mar kasta in la jiheeyo ama wax noolagu qasbo waa tan hadeertaan iyadoo ay baarlamaankii dhammaa ay dhaheen maxaa la dhahaa ii sheeg doorasho jihayn doorashaan samaynay hadda 17 lagu laabtay September lagu laabtay taas baa waxaa cadaynaysa inaanan saan doono in la yeeli karo aysan jirin marka instead of been la isku sheegi lahaa oo waxaan jirin la iska dhaadhicin lahaa waxaan oran lahaa road map kaleeto oo annaga noo dan ah oo annaga noo xal ah oo annaga naga imaaday ayadoo 17 September lagu base garaynayo hal la keeno especially qofka aan ka rabno road mapkaas inuu keeno oo waxtar leh sidii markii qalalaasihii dhacay 2000 markii ra'iisul wasaare Farmaajo laga qaaday shaqada oo road mapkaas jiheeyay doorashadii dalka jiheeyay maxaa la dhahaa dastuurkii jiheeyay dhankii aan u soconay saasoo kaleeto oo wali caadi fiiri ma oranayno ku takrifal awoodeed ma jirin oo dawladihii soo dhacay dhan laakiin ciidanka siyaasadda lama gelinin marka ugu horeysa dawladdan waxyaabaha ay keentay xasan sheekh dawladdiisa xogaa bilaaw watay iyadina isla markii way ka joogsatay laakiin dawladda Farmaajo waxaa moodaa khalad kasta iyo dambi kasta oo ay gasho waxay ku leeyihiin cidna loo joojin maayo daaminas ma qiranayno ciidan u joojinayna male marka midda ugu horeysa oo ra'iisul wasaaraha laga rabo waxay tahay inuu qirto in ciidanka siyaasadda ku jira in ciidanka siyaasadda laga bixiyo in maxaa la dhahaa guddi loo xil saaro doorashooyinka ka madax bannaan maxaa la dhahaa guddiga doorashooyinka ka madax bannaan oo degmooyinka jooga oo xaliya ma ahan kuwa khilaafaadka xalinaya waxyaabihii ka imaaday doorashada dib u heshiisiin camal ah waxyaabihii ka imaaday in la qalalaasi xoog laha doorashadan ka yimid wixii ka imaaday xal degdeg ah ayadoo doorashadii socoto in ay xaliyaan haddana dhibaatadii ka imaatay khilaafaadkii ka imaaday ciidankii la isku isticmaalay galmudug ciidan baa laga soo kaxiyaa la leeyahay hirshabeelle maanta waa kala taagan tahay oo hiiraan waxay u taagan tahay dhinac jawharna laba dhinac ay kala noqotay annaga iyo Axmed Madoobe laba dhinac baan kala nahay waxaasoo idil oo calashaan dadkii Axmed la jiray iyo dadka annaga nala jiraba si ay kalsooni ugu qabaan inay bahaarayna doorasho ku geli karaan oo dadkooda inay dooran karaan ay xaq u leeyihiin aysan cabsi ay ka qabaan annaga inaan dhibaatayno si Axmed iyagoo la jira kuwa kismaayo joogana ay kalsooni u qabi karaan inay maxaa la dhahaa aysan dhibaato ku dhacaynin sidaasoo kaleeto galmudug sidaasoo kaleeto hirshabeelle sidaasoo kale muqdisho marka waxaa jirta hadda kalsooni darro xoogan teeda kalena waa gunnimada waxyaabaha ay dawladdan la imaatay waxay tahay gunnimaan dadka ka saaraynaa calashaan qabkii baan soo celinayna daaminas gunnimada ugu liidata wey markii qofkii la tuso inuusan dalkiisi doorasho ku geli karin hadduu xagga joogana Axmed Madoobe uu maxal dhahaa uu ka baqayo hadduu dhankan joogana gada joogana dawladda federaalka uu ka baqayo hadduu hirshabeelle joogo uu ka baqayo kuwa hiiraan jooga hadduu jawhar joogana uu ka baqayo daaminas waxay tahay dadkii waa la gumeeyey awoodii baa loogu takrifalay waa la gumeeyey dawladdaanna waxaan oran karaa waxa ay la imaatay dhaqamo badan oo xun bay la imaatay laakiin dhaqanka ugu liida waa gunnimo siyaasadeeddaa sidii looga bixi lahaa oo dadkii qab inuu qofka isku kalsoonaado qab uu lahaado iimaan uu lahaado ilaahay uu tala saarto qofna inuusan qof u hoorsanin gacmaha uusan u baryin inuu asaga leeyahay awood waa waxa hadda Farmaajo loola daba socdo fahad looga daba socdo dadkii siyaasiyiinta ahaa dhan waxaa ku jirta cabsi ah ama bari wax idin yeelayaan marka aniga waxaan oran lahaa waxaasoo dhan sida looga gudbo waxay u taalaa ra'iisul wasaare Rooble road map inuu qoro taliyaasha ciidanka inuu kala bedelo inuu kalsooni soo celiyo in maxaa la dhahaa calashaan aysan si xasilooni doorasho ah oo xor iyo xalaal ah sida kaliya ay ku dhici karto waa saa marka waxaa looga fadhiyaa ra'iisul wasaare Rooble
sida uu u qaato u maareeyo arrintan hadduusan maarayna haddaan sheegayaa farmaajo inuu iscasilaa imaanaysa farmaajo ila meeraysa ha wado wuxuu doona ha wado dad badan oo ha ku awrkacsado ha ka dhaadhiciyo wax khaldan laakiin xaqiiqda waxaa loo tegayaa farmaajo inuu iscasilo dadku waxay u qabaan in farmaajo laga baqayo doorasho inuu galo lagama baqayo inuu farmaajo doorasho galo waxa laga baqayo waxay tahay dalka inuu khalkhal galo haddii sidaan doorasho lagu galo haddii sida awoodda uu farmaajo ku leeyahay uu awood ku lahaado waxaa laga baqayaa degmo walba dagaal sokeeya inuu ka dhaco marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan ka cararayno waa burbur dadkii baa la caburinayaa dadkii baan hadli karin qof maanta dawladda meesha ay joogto jooga oo hadli kara ma jiro Axmed Madoobe qof la jooga oo hadli kara ma jiro Puntland baa dadkeeda siciidan inuu xulay adinkiina ma hadli kartaan sababtoo dawladda federaalka aniga iska celinaya marka waxaa dhacday kalsooni darro siyaasadeed oo xoogan waxaasna waxaa looga bixi karaa waxay tahay haddii uu ra'iisul wasaare Rooble xal la imaan waayo farmaajo in uu iscasilo baa imaanaysa oo qasab ku noqonaysa haddii kaleeto meel xun ayuu dalka ugaga tegayaa dadkaaga markaadan haysanin oodan dadkaagi gacantoodii aadan calashaan aysan wadaniinimadii iyo inaad kala aragti duwantiin intaa ka dhaqaaqdid laakiin walaaltinimadii iyo soomaalinimadii ay kugu weyn tahay dan ma imaanayso carqalad iyo kalsooni darro siyaasadeed madaxweyne farmaajo saan horey u sheegayba qofka uusan rabin wax kasta ha ahaado cadowtinimaa kala dhaxaysa cadowtinimadaas baa waxaa keenaysa dad badan oo ka cabsi qaba fiiriya ciidanka awoodda ay heleen dhaqaalaha dalka soo galay hubka dalka la keenay inuu farmaajo ayagii ku isticmaalayo baqdin ay ka qabaan ayaa waxaa sii sahlaysa ayagoon xiriir la lahayn xataa wadamada dhibaatada nagu wada inay isku meel isugu soo biyo shubmaan maxaa yeelay Kenya aaminsan Soomaaliya hubka ay helayso inay dhibaato ku tahay oo carqalad ku tahay musharaxiintii oo aaminsan hubka ay dawladda haysato inay carqalad ku tahay oo ayaga ay dhibaataynayso anigoo maanta aaminsan degmo walba inay dagaal ka dhici karto because hubka dalka soo galay waxaasoo idil fiiriya yaa u sabab ah waxaa u sabab ah madaxweynihii baanan maaraynin oonan hubkaasna soo gelaya iyo inaan annaga cadowgeena iska difaacno iyo inaan si taxadar leh dalkeena uga shaqeyno iyo in dadkii aanan la gumaadin oon dadkii aysan cabsi ka qabin awoodda uu madaxweynaha kaligiis isisiiyey no awoodda dawladda iyo awoodda madaxweynaha shakhsi ahaan uu isisiiyey labay kala tahay Fahad iyo farmaajo waxay isisiiyeen awood xoog leh oonan qarannimadii awooddeedii ahayn awooddaa way waxa dadka cabsida gelinaysa awooddaas markay dadkii cabsida geliso oo maxaa la dhahaa ii sheeg wadamadii dariska ahaana ay cabsi awooddii dalka ahayd ay qabaan ayadoonan la isku dhinac ahayn buu farmaajo dadka isku wada dhinac ka dhigay waana waxa calashaan yaabka leh oo maxaa la dhahaa xayiraadda soo rogtay waana waxa yaabka lehoo dee aysan qof mas-uul oo hogaamiye daleed ah inuusan dadkiisii cadow ka dhigto oo ilaa limid ay ka baqaan lafahooda uga baqaan uu gaarsiiye aysan ahayn farmaajo waa loo wada kacay run ahaan aniga ahaan haddaan iska soo qaado cadowtinimo igu jirto ma jirto calashaan maantana waxaa igu jirta inaan ka baqayo waxay capable u yihiin asaga iyo Fahad not aniga keligay shacabkii oo ay la wada joogaan dhan baa qaba shakhsiyaadka maanta xamar jooga oo ciidankii sida ay ugu takrafalaysa awoodda ayaa qaba mana aan eed ka imaatay ciidankeena run ahaantii ciidankeena iyo dhallinyaradeena waa dad wanaagsan laakiin dhaqanka iyo qaabka loo maareeyey ayaan oran karaa inay taa keentay waana runtii ayaan daro farmaajona waxay u tahay mugdi maxaa la dhahaa siyaasaddiisa actually taariikhda ay ka qori doonto horta run ahaantii waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego run ahaan wixii 25kii dhacay inay dhici karaan ma aaminsanayn taas oo kalsooni darro xoog leh igu beertay oo i aaminsiisay haddayba Muqdisho taa ka dhacday awal degmooyinka kale inay ka dhici karto waa aaminsanaa oo gobolada laakiin haddayba Muqdisho ka dhacday inay meel walbana halis u tahay Muqdishona weli ay halisteeda leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabadda iyo horumarka kama imaata maxaa la dhahaa hogaamiyaha iyo dawladda waxay ka imaataa shacabka waxa qaxaya waxa dhibaatoonaya waxa ay wax walba ku dhacayso waa adinka
qof jeclaysiga ha la iska daayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku fashilmay siduu ummadda horumar ugu soo maxaa la dhahaa amnigeeda u damaanad qaadi lahaa horumar dalka u keeni lahaa xasilooni siyaasadeed uu dalka ugu wadi lahaa maadaama uu taa calashaan ku fashilmayna qofka fashilmay waa inaan oran karnaa waad fashilmatay teeda kale waxaan leeyahay dadka social mediaha kala garan la dembiga iyo siyaasadda geemka siyaasaddana waxaan leeyahay dadka waxyaabaha meesha u wadaan ka joojiya haddii aysan joojinina qof walba meesha uu joogo iyo dalalka uu joogo dacweynaha looga qoro maxaa yeelay run ahaantii waddanka dagaal baa ka dhacay dhibaataa ka dhacday in siyaasad laga dhigana dadka dhallinyarada ah oo dalka jooga oonan calashaan u arka dadkaasi inay yihiin role modelkoodii ayaa waxay u qaadanayaan inay waxaasi saxsan tahay culamaa udiinta ururada bulshada haweenka dhallinyarada waxaan leenahay dalkan ha loo istaago sidii nabadiisa iyo midnimadiisa looga shaqayn lahaa waana ku celcelinayaa madaxweyne farmaajo wuxuu ku fashilmay xasiloonidii siyaasadda dalka siduu uu ku keeni lahaa xasilooni darrada jirta iyo cabsida jirtana asaga ayaa mas-uulka ah haddii aan fashilnaantaasi loo saarinna marnaba ma dhacaysa in dalkaana uu hagaago qofka mas-uulka ah haddii uu dhibaato geysto waa in uu dhibaatada inuu geysto hadduusan asagii ogolaanaynin cabdulaahi yuusuf allah u naxariistay intaan rabaa inaan kelmad ka dhaho cabdulaahi yuusuf allah u naxariistay markuu tanaasulay si wuxuu u tanaasulay sharaf leh wuxuuna caddeeyey siduu maxmoodayay inay noqon weyday dhibaatadii dhacday iyo wixii dhacday asagoo dadka ka raalisiinaya ayuu tanaasulay madaxweyne farmaajo hadduu taa samayn waayo oo weli uu dad eedaynayo dalkani iyo inuu nabad dalka ka imaado way dheer tahay waxaanoo dhanna asagaa keenay waana ka xumaay runaantii